kale kama aadaya khayraad eebba baxshi anfaca xoolaha watiyo macdanta asalkee lahu dhirtiyo jawiga indhaha bay dhabarka dhulkale kama aadaya galaba ahsan wada guda wana indheer garata lahabo abidan aqoon diineedu daa duqay wada galaba xoolaha watiyo macdanta asalkee lahu dhirtiyo jawiga indhaha bay dhabarka dhulkale kama aadaya khayraad eebba baxshi anfaca xoolaha watiyo macdanta asalkee lahu xildhibaanada koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulkii maaliyadda degmada Baydhabo gudoomiye ku-xigeenkii hore maamulkii maaliyadda degmada Baydhabo dhammaan agaasimaha waahda dhangelinta saaxiibkay Mr. Elias dhalinyarada kale oo deegaanka aanka ka oo ku qayb galay dhamaantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh anta may baa ku dhawaayaynaha xildhibaan deegaanka eedlanka Kasaaw muddadiisu roogayna shaqo wanaag leeyahay usaka gobadii oo geeka deegaankana meel raay magac iyo maamuus kale iyo dhawaayahayna runtii walin kuma hadaliyay xildhibaanadii hanoo qayb galeen oo gordeen in xildhibaanka si iyo wiineen waan hadhawaayana eedanka kama nagaana runtii xildhibaanka oo safar shaqan kama oganay dalka dibadiis xildhibaan hadhow koonfur galbeed ka dhaw deegaankii ka dhaw degmada Baydhabo wali kalena shaqo fayl howlo oo meel raay runtii xildhibaanada koonfur galbeed iyo hayaan howl eed baahad wiin lew maamulka degmada Baydhabo hadii uu may ba garab surugnaa guud ahaanba dawladda koonfur galbeed wali la garab surugnaa shaqo iyo wanaag marka lan kasta oo deegaankan in shaqeeyo oo reer koonfur galbeed uu mayno mudan yahay sharaf iyo maamuus eedan ma santiin mudan xildhibaan hadhow isin walaalayaal ma santiin xildhibaanada iyo madaxda kale inta ku qayb galay eedan ma santiin wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله سبحانه وتعالى يا مهد سكولاء ما يبقى أنتن كما هنجي حلوانا ذا كونفور قلبات حلوانا ذا نشرفت له يو مملك دقمة بيدوا يردلن يردن أقونيان كا أو يونا هقول قيب قلين جي كنتيو هدوايان حلوان كان حلوان عبد الفتاح علي يوسف xilwaanku oo siina shaqaan kama qonay dalka Turkiga oo hadda dib ahaan kanaga magaalada Baydhabo ciidanka kama nagay dadka dhamaantiyo oo qayb galan soo dhaweynta xilwaanka xilwaane hadawaaw kulli hadal mi infurnayna maadaama la iga sabay marka kalimateen kasiya ka darsade hadawaaw magaalada Baydhabo oo barwaaqaysan roobneen qobadi doogi isbedeli haka dawaaw gacmo furan haka dawaaw yak laha dalkii ka hariidhan kanagati أنا وأنت أسكو فائدة يسدو ما يكلهذا نحن بليه ما دام إيديباني فضلت رمضان كي نبت كذا ما يسنى الحمد لله نبت كسوني رمضان كرمضان شيء إلهي عفمات إبرواق إلهي ندرسي دولة كونفور قلبنا إلهي سبحانه وتعالى سكسي فيلا سكسي وناكسن إلهي ندرسي لنا ومدحوينه إن شرفت له قيمة قدرنت لنا هجامية هاي مدحوينه عبد العزيز أفتقران مدحوينه إن شرفت له وسين عمر داري عفمات إلهي كأرزاقية لنا
usinaftishayna inta may leeraashan kama hadnagaana marka xilwaane hadhawaaw insha Allah gacmo furan ha ka dhawaaw dalkii ka nagati deegaankii ka nagati argayta dadka geeka may leeraayus siyo kinjeeliin may keero dad shilay hadhawaay may keero xilwaanka waa dadkii dhaqanta fadhiyaan geeka insha Allah eedana ma hasanteen insha Allah kulli walinin shanti iyo walinin wada iyo wali ada qabta adinin sheega doonta insha Allah gacmo furan ha ka dhawaaw awalan ilaahay subhanahu wa ta'ala may baan kama hadiyaan kulunkum intii kulmi asxaabto dhamaantii wada jir un maanaha inta kulungni ramadaankana gabagabanin may ba salaamay markan ka hore tildhibaanada dawlad goboleedka koonfur galbeed agaasimaha DDR maamulka degmada Baydhabo dhinaca maaliyadda dhinaca arrimaha bulshada maamulkii hore dhalinyarada aqoon-yahanada intani maanaha ha ku qeyb galay geeka may buaha soo dhaweyntan hasku qeyb galnay sidoo kale xildhibaan Cabdifataax oo si weyn dhanka ka soo deegaankan dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo nawaaxshay may baa runtii geeka inta maanaha farxad iyo raanraan iyo lahan koobo korna ka dhawaayayna xildhibaan kumad xildhibaanada labaad dawlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaan Cabdifataax Ali Yuusuf oo muddo ka maqnaayay howlo shaqo dalka Turkiga geekana dib hankanagadi magaalada Baydhabo taas oo una leena xildhibaan hadhoow deegaanka ka dhawaaw dadka ka dhawaaw magaalo barakeysan oo nabad ah ka dhawaaw iidnan is diyaariyahay reedka way buaha wal wiino saas maanaha dhibaato aan ku dhiina waan ku jarnay Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo daxaali deegaankaas oo maanaha deegaankii aad ka saasi xildhibaanada asxaabta maamulkii degmada dhalinyaradii intuu in ku badan maanaha ani ka dhawaayto fadaasi diyaar ahaayeen waqti Soomaaliga jaray may buaha hundurmi walaasa kulay yala ka mashquuli marka may ba kalena deegaankii ka dhawaaw asxaabta ka dhawaaw sidaan injiilis ku wanaagsan ka injiilna eediyadana siin kama hadnagaan intii bisoo dhaweyntan ku qeyb galay Ilaahay subhanahu wa ta'ala may balena soonkan soon shay oo caafimaad iyo imro dheer gabna maana intii Ilaahay wada deersi uu dhan iyo intii muslimiin cibaadada soonka iyo may la raay uu nahay cibaadaysanin Ilaahay noo aqbala way ba inta ku salaamay salaan guud aan ku diray ummadda islaamka meel kasto roon gaar ahaan dawlad goboleedka koonfur galbeed dadshay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rahiim marka hore assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiin inta may leeyahay hani dhawayti inina leeyahay garoonka stadium international stadium Shaati Gaduud iidan ka mahadsantiin dhalinyarada xilwaanada iyo gudoomiyaasha marka hore waan xambaliyay lamada gudoomiye kigeen oo gudoomiye Cabdifataax iyo gudoomiye Arab xambaliya siin la kulay anoo moqona oo dalka duwada jara ya maamulka degmada ka biirtan waa isbedelka oo la suubiyo waa isbedel dawladnimada bak jartay in la isbedelo madaxweynaha Abdiis dhanka ma nagaana maadaama uu sunan dhalinyare usan dooradi inaan dhalinyare horan haaye waa siyaasadda oo state-ka micnay oo horumarku ku suubiyo kuma dadta tan kale xilwaanada ida ma sintiin siinka ma hadnaga waqtiga iyo fursadii sinneedan inay oo waqtigii aanay hurtaan isin oo shaqaleetiin song iyo may leeyahay dareemo korna may leeyahay xilliida oo dadka binaadin kulaasida oo laakiin jiilan iyo may leeyahay xilwaankii hadhooyay fursad hasiidan waqti badan han hurtaan ida siinka ma hadnaga kulay ana safar Turkiya ku maqnaay muddo badan ku maqnaay kulay waxyaabihii meelo oo ka aragay iyo waxyaabihii kulay oo jari markale inay sheego doonaan oo faahfaahintiye iyo meel leeyahay waxyaabaha kale oo sanasa dhiyaanan marka si ma hadnaga iidana ka faraxsana inay maamulka usbaay xilbaanadii agaasimayaashii dhalinyaradii aqoonyahanka iyo dhamaantiyo ay dhawaayaan Baydhabo wayla iidan mahadad siin mahadnaga waan iidan ka faraxsana marka insha Allah is roognan is waraysadaanan waqti badan isagaadana insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh